dhimashadu ma aha gunaanad ee waa bilowga nolol cusub. Tani waa adduunyo oo waa hoyga falashada ee ma ahan hoyga hanashada. Imtixaanaadka uu Ilaahay mariyo addoommadiisa waxaa ka mid ah inuu ku salido musiibooyin, kuwii aynu jeclayn oo aynu weynaa waa musiibo, hanti la'aantu waa musiibo, deriska xun, lamaanaha liita iyo maamulaha dulmi falaha ahina waa musiibooyin. Qofkii adkaystaa waa uu ku guulaystaa tijaabada, kacdoodana waa uu ku dhacaa imtixaanka. Xanuunada ugu daran ee ku dhaca qalbiga waxaa ka mid ah kibirka oo ah qofka inuu iskala weynaado dadka wanaagsanina waxaa dhaqan u ah inay si dhaqso iskaga daaweeyaan markii ay iska dareemaan wax yar oo kibir ah. Farqi weyn ayaa u dhaxeeya kan xumaanta falaya isaga oo taag daran oo niyad jabsan iyo kan falaya isaga oo kibirsan dembiyadana fudaydsanaya. aad ayay u kala duwan yihiin shakhsiga xumaanta falaya marka aad la talisana ku dhahaya shaydaan baa iga awood badiyay, iyo kan adiga oo u diirnaxaya ku dhahaya maxaa ku jaban waa nolol kaliyaata iska raaxayso. xumaanta qofka aad jeceshahay ha ka dhigin wanaag, waayo waa aad jeceshahay. wanaagga qofka aad neceb tahayna ha ka dhigin xumaan, maxaa yeelay waa aad neceb tahay. ee ahaw cadaalad fale wax walbana ku hubsada halka ku habboon.